وهاجاك داوديال وحان مقالة هرقيسة عاصمة الصومال أنا كلا قدوميها قبلك قبلي مصطفى شيني كاسون سؤال بدن كويدين دونا حالة جودة قبلك وهري قدوميها حنويديني حالة دابارات اللي قصو شيء قبلك قبلك الصومال لان كارهان قبلك قبلي أو قدوميها وياه بسم الله الرحمن الرحيم كل حالب إن دويت دوال لوجا gobolada galbeed khaasatan waxaa ka jirta abaar baaba ka jirta abaartaasoo dadkii deegaanka u dhashay qaangaarka ah iyo dadkii waayeelka ah ay garanayaan ay leeyihiin may na soo marin tan mid lamid ah intii aanu jiray waa runtii abaar ilaa 34 sanadood aan ka dhicin dalka ayaa ka dhacday galbeedkan ka dhicin baa dhacday abaartaas runtii markuu 3 jir weeye waxaa laga yaabaa dadka qaar inay yidhahdaan suuqii roob u daayeen sabab waxa weeye xilli seasonka ama xilliga roobku daa dee waxaa laga filaa biyo ayaa cirka laga filaa intaasoo millimeter biyihii la filayay biyo aan u dhoweyn ayaa dahay marnaba may keenin in beerihii ay baxaan beeraha qaar waxaa weeye xilli kasta 3 sano 3 jeer bay dib u qodayeen beerta 3 baan waxba kasoo baxay meelaha qaar wax yar ayaa wax laga helay hadda xilligii ugu dambeysay waxoogaa bala umba baxay meel gololeyda umba waxoogaa laga helay hadhowna laakiin gobolkaasi abaar 3 jirtay baa runtii ka jirta abaartaasi waxay saameysay dadka xoolaha lahaa waxayna u badan tahay dhinaca oogada ama koonfurta magaalada Gabiley wixii xagga laamiga ka xiga koonfurta ayay abaartaasi u badan tahay dadkii halkaa ka joogay markii ay wax u waayeen xoolihii iyo naftoodiiba waxay maciinsadeen inay waqooyi u kaxeeyaan xoolihii dabeedna loodii ayaa tagtay waqooyi dabeedna markay loodii tagtay waqooyina roob badani ma jirin loodii way ku noolaan kari weyday dabeedna way ka soo dhaqaaqeen waxay tidhahdeen bal xaggiini dib ugu noqda halkoodii waxba kaga soo horay dhulkay soo marayeen ama waxoodu waxay keentay meel walba laga bilaabo waqooyi ilaa iyo Gabiley afkeeda hore in loogu yimaado dee loodiyo mayda iyadiyo fadhido roqeya oo kici weyday dadkii oo ku barbar dhacay waxaa la sheegayay meelaha qaar in raggii ama xoolaha qofkii xoolaha wada iskaga dhaqaaqay markuu dhaqaajin kari waayo si adnaha ku agdhiman runtii maamulka degmada iyo golaha deegaanka oo hogaaminaya maayadka magaaladu waxay u dhaqaaqeen gurmud taasi oo ahayd inay tagaan kadib markuu maayadka aanu ka tashanay oo nagala tashaday inay gurmadaan oo ay tagaan ilaa iyo waqooyi la qaado waxaa la iibiyey bal baa la iibiyey balkii intii laga gaarsiin karay biyo ayaa la qaaday meelaha qaar oo arkayseen sac dhaqaaqi waayo biyo moysaca la qulaaminayo biyo la qulaaminayo inta cagad loogu shubay ama moysacadii cabayeen ayay dee siiyeen markii wax kale maaragtay gurmad degdeg ah si at least beerka bahaayinka loo qooyo ilaa iyo arrintaasi waxay taxnayd dee gurmud 2 maalmood ah ayay dowladda hoose samaysay runtii taasi ma wax kaga filan oo kaga dhacaya boqolkiiba 0.0.1 wax kaga dhacaya ma aha waa wax u baahan gurmud qaran u baahan runtii abaar qaran wey abaar gurmud qaran u baahan oo in la dhigo wax kasta oo qaranka uu wado la joojiyo oo loo jeesto dhinaca haddii aan ilaahay degdeg roob inoogu shubin shalay hore madaxweynuhu wuxuu ku dhawaaqay in la sameeyo qayladaan roobdoon salaad roobdoona shalay annagu waxaanu ka mid ahayn meelihii ugu baahida badneed inay tukadaan nahay shalay annagu gobol Gabiley waanu ku tukanay ilaahay waanu barinay daruurtuna way fiicneen shalay iyo daraad iyo maalmihii ka horreeyey laakiin ilaa hadda roob lama sheegin waxaan rajeynayaa ilaahay saan uga baranay inuu ilaahay naga aqbalo runtii oo ilaahay madar qeyb qabo noo shubo oo ilaahay bahaayinka iyo xasharaadka maanta dembigii bini'aadamku uu galay ku ooman inuu ilaahay oon tiro ayaan rajeynaynaa intaa ka horeysana waxaa weeye biyo bini'aadam kuma fila dowlad hoose Gabileyna kuma fila arrintaas waxaa weeye in guddi qaran la saaro runtii la baadho intay hadda abaartaasi la eg tahay runtii baaris badan waqtiga loo hilmaayay arrinta guddidaasi qaran dee ka gurmato runtii oo gobol ka mid noqdo gurmadkaasi ayaan rajeynaynaa annagu iminka muddo laga joogo sanad waanu hadlaynin ood ogeydeen media intaasoo jeer baan ku baaqay hay-ad bay qarankan u sameeyey kahortaga abaaraha iyo masiibooyinka hay-adda runtii laftigeedu waa dadaaleysaa
laakiin waxaad moodaa in jawaab rasmi ah aan ilaa hadda aanan laga hayn. waxaan rajeynaynaa madaxweynaha jamhuuriyadda somaliland doorkii hore degdeg isagoo safar ku jira ayuu amarku bixiyey in biyo dhaams aanu samayno. markiiba waan ku guuleysanay in biyihii la gaarsiiyo wasaaradda maaliyadda wasaaradda biyuhuna qayb bay ka ahaayeen. sanadkan sidoo kale waanu sameynay anagu oo aadi nala shaqeeya sida Action Aid, WFP oo kale ayaa iyana sameeyey raashin qaybin iyo biyo dhaamin. dowladda hoose ahaan anagu cudurta gobolka dhaqaalaha bay dowladda hoose keliya soo galaa. dowladda hoosena way dadaashay runtii inta tabarteeda. waxaan rajeynaynaa mar kale inuu madaxweynuhu ku celiyo insha allah inuu ku celiyo ayaan rajeynaynaa arrinta la xoojiyo oo baaq madaxweyne noqoto in arrintaa laga wada qayb qaato. waayo xitaa markii dowladda hore madaxweynuhu hadlay xitaa ganacsadii baa ka qayb qaadatay. maanta mar kale waan rajeynaa insha allah. waayo ma aha inaan media ka helaa in madaxweynaha arko ama warqad u qoray ahay, laakiin maadaama safar ku jiro taana waa midaan sugayno in arrintaasi si heer qabna aan uga howlgalo sidii aanu ka baranay madaxweynaha. insha allah jawaab degdeg aan helaynaa. waxaan amarka qabta wasaaradda maaliyadda iyo wasaaradda biyaha in la gurmado insha allah. laakiin waxaan rajeynaa ducada in ilaahay naga aqbalo oo aanu ka maarano gacan bini'aadan. markaa guddoomiye marka laga yimaado xaaladda abaareed ee gobolka jirta, xaaladda guud ee gobolka waqti xaaladkeeda udheeda warbixin naga siiyo. wallahi wax kasta waa isku fuuqsatay, abaaraha jira isku fuuqsaday, howlihii aan wadno o dhan isku fuuqsaday. laakiin gobolka maanta maalin saad la socotaan gobolku maanta maalin ka degan yahay dhinaca siyaasadda ma jirto. wax dhibaataa oo qaylaha ma jiraan. nabadgelyadiisu aad bay u fiican tahay. gobol xuduudku yaal wey runtii aan indhaha ku hayno. waad ogtiin gobolku inuu wajaale iyo alay baday dhulkaasoo xadka ay yihiin. gobolka nabadgelyadiisu aad bay u fiican tahay. dhinaca kale waa caafimaadka iyo waxbarashadii dhammaantood maanta waa maalmahay ugu saraysay. tusaale ahaan dhinaca caafimaadka oo kale waxaan soo kordhinay iminka intaan anigu joogay aan ka howlgalay in 2 dhakhtar oo ajnabi la keeno oo dhaktari uu yahay qaliinka guud, dhakhtarina uu yahay dhakhtarka dumarka mooye. maanta gabadha umusha ah marka lagala saaro tuulooyinka gabilay la keeno oo waxba lagaga qaban kari waayo inta Hargeysa loo soo sidee dhima jirtay. maanta waxaan rajeynaynaa awoodka ilaahay waaye in gabadha loola saaro gabilay aan la dhaafin waayo dhakhtar professional iyo mid qaliinka guuda baa jooga markiiba halkaas laga qabanaya. sidoo kale dadkii qaliinka u baahnaa maanta waxay maraysaa dadkii in dhakhtarka uu fiixda ka gooyo iminka waan la haweysan jirin reer gabilay ay dee fiixda iska jiraan. daroolkayga ka mid ah in fiixdii dhabarkaga tahay laga qalo. yacnaa maanta ma dhacdo iyana in Hargeysa loola soo cararo qof qaliin u baahan. waxbarashada kale runtii aad bay wanaagsan tahay. iskuuladii inkastoo ay extension u baahan yihiin in la ballaariyo haddana dowladda hoose iminka xilligan maayarka waa soo yimi waxoogaa iskuullada baa la dhamaystiray maqabiyaha qaar baa hadda gacanta ugu haya. waxaan rajeynaynaa in insha allah xaggaan anu daboolo baahida waxbarashada. jaamacaddii baa iminka si fiican u shaqeysay iyaduna. dhinaca marka la eego gobolka horumar badan baa runtii la filaya. maalin dhow waxaan rajeynaynaa in marwada madaxweynaha jamhuuriyadda somaliland ay noo furto mashaariic dhowra oo ka mid yihiin kawaananu ka dhisnay arabsiyo mataqaanaa iskuulo saldhigyo brace goobo caafimaad in intaaba ay xarig ka jirto insha allah ayaan rajeynayna. dhinaca horumarka gobolku aad u wanaagsan yahay. waxaa kaloo aanu sanadka soo kordhinay iyana inaanu samaysano qorshe sanadeedka 3 sano soo socota 16, 17, 18 oo ay ku jiraan mashaariic badan oo qaarkood durbaan rajeynayna inay noo hirgalaan sanadkan. way ka mid yihiin youth center inaanu samayno magaalada oo dhalinyarada isugu timaado librarigiino leh ay fadhiistaan oo ay ku wada hadlaan oo ay taaliimta kaga maarmaan mashaariic ku samaystaan. waxaan rajeynaynaa garoonkii sportska oo roog leh inuu hirgalo. waxaan rajeynaynaa in vocational training center arabsiya oo strategic plan loogu jira ama helo. shalay waxaan la kulmay mas-uulka tis ugu sareeya ee Nairobi fadhiya mashaariicda Somaliland iyo Soomaaliya. waxaan kala hadalnay dhismihii xafiis gobolka oo iminka degdeg u bilaabi doona oo dhismo cusub runtii la dhisi doono. waxaa kaloo kala hadalay in garoon kubadda ay ku ciyaaraan dumarka basketka abluhu ay ku ciyaaraan in labadaaba runtii wuxuu yidhi markaan ka dhamaysaan in kalena waanu ku xijin doonaa. waxaan rajeynayaa sanadkan in 2016 mashaariic badan ay noo hirgalaan oo ku jira qorshe sanadeedka aanu samaysanay iyadoo wasaaradda qorsheynta wasiirka aan uga mahad celinayo cali saaxiibkay uu arrintaasi gacan naga siinay runtii inuu nagala hawlgalay sidii hay-adu ugala qayb qaadanayo. waxaana wadnaa imika validation meetingkii ugu dambeeyey eanu kusoo gabagabeynayna kuna daabaayna qorshe sanadeedka
gudoomiye gabagabadii aan jeclaan soo koobo warbixintan aan jeclaanahay maadaama ay Gabiley tahay xarun ganacsi kuna taalo xuduudka arrimaha ganacsiga Itoobiya iyo Soomaaliya laniyo de ganacsi waa inuu sharci yahay anuu ganacsi aan maqaana sharciga annaga Itoobiya imika waxa weeye waadii wafdi halka wasiir ganacsiga watay waxaan ku heshiinay in la fududeeyo liisamada dadka ganacsatada runtii ganacsi sharci ah imika noo dhexeeya iyaga waxba nooga yimaada anana waxyaabo badan baa nooga taga marka ganacsiga Itoobiya sharciga ayaan rajeynaynaa inaan dhamaystirno waxa ka dhiman in dowladda Itoobiya iyo gaar ahaan maamul goboleedka dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya oo runtii xiriirkeedu aad u wanaagsan yahay oo xiriir wanaagsan aan leenahay oo intaa nabadgelyada iyo ganacsiga ka wada hadalno ilaa heer wasiir ilaa heer maamul gobol ilaa heer degmo aanu aad isugu xidhanahay marka waxaan rajeynaynaa in maandhow ganacsi ballaaran ayna dhex mari doono iyadoo imika uu ganacsiga waxoogaa ku jiro aad iyo aad baad mahadsan tahay kaas waxa uu ahaa gudoomiyaha gobolka Gabiley Mustafa Shiine oo waraysi gaara TV-ga Caalami Kasan TV uu kula yeeshay gudaha magaalada Hargeysa aad iyo aad baad mahadsan tahay